xubno isugu jira Coqaal Salaadiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Saaxil ayaa ka hadlay khilaafka ka oogan baarlamaanka Somaliland waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland u soo jeediyeen inuu baarlamaanku sidii uu isugu dhafnaa ee uu lahaa shir gudoonka uu ahaado sidiisii isla markaana aanay macquul noqonin in shir gudoonku laba noqdo oo qolana codka lagu ridayo yaraato qolana isaga ahaana uu codka lagu ridayo bato taasoo ay tilmaameen gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada uu ka soo jeedo gobolada bari ee Somaliland ee loo baahan yahay saamiga weyn laga siiyo dalka una mudan yahay in la siiyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaana hadaladoodii kamid ahaa xubnahaasi haddii aad tiraahdeed anigu two-third baa lagu ridi karaa laguna dooran karaa ku xigeenaduna waxa weeyaan simple majority baashood Somaliland jeex matalayaana aad naasil ka dhigto ma shaqaynayso waxaan leenahay markaa waxa awood badnaanaya baasho ku xigeenoo Somaliland bad matalaya dhaqan jiiriyana aad kadinka ka boodo maaha adeegii siyaasaddu lahayd waxaad daanin madaxweyne doonaya wax lagaaga baahan yahay adkaysi badan iyo tanaasul badan iyo maalinta aad aragto in meel laga riixayo sharciyadna lagaaga riixayo aad kaliya adkaysato sharciga ha loo hoggaansamo sharcigu waa madaxana in laga boodo maaha baanu leenahay gudoonkeennu saddexda nin ku ogay ayaa niyid anigaa keligay shir gudoonkii anaa keligay gudoomiye shir gudoonna ma jiro waxay dadka tusaysaa dictatorship wuxuu baanu maqlaynaa oo kaliya baarlamaanka oo is haysta toddobiyo kontonka mudane mushirka soo jeediyeen ee shir gudoon diiday gudoomiyihii baarlamaanka uu diiday ka kacay waa sharci darro mucaaradka xukuumadda dadweynaha waxaanu leenahay sidaasu waa si nabadgelyadeena xumaynaysa hal laga daa geela duqdiisu dubdurisay aarankiisana maxaa loo dibaalay yaxay hoosaan yay shaqo jinjood yaxay hoosaadkoodii dhaafin oonay Somaliland dib kale u soo horseeday reer Somaliland ma dhex marunay dalka maslaxadiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo wanaagiisa inaan ku shaqeyno ayaana ugu soo noolaha bal Karim Saciid Saalax Home Cable TV Berbera